kulanti wacan ku soo dhowaada wararkii Itoobiya. Mudane Damaga Makonnen, ra'iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ayaa sheegay in heshiiskii lagu gaadhay Pretoria uu yahay mid ay ku faani karaan dhammaan shacabka Itoobiya iyo shacabka Afrikaaniintu. Mudane Damaga ayaa hadalkani ka sheegay kulan uu uga warbixiyey heshiiska oo uu la yeeshay shaqaalaha ka howlgala wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka. Mudane Damaga ayaa si qoto dheer faahfaahin uga bixiyay ahmiyadda heshiiska iyo faa'iidooyinka uu leeyahay dhammaan dalka, wuxuuna halkaasi jawaabo kaga bixiyey su'aalo kala duwan iyo talooyin ay halkaasi ka soo jeediyeen shaqaalaha ka howlgala wasaaradda arrimaha dibadda ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya. Wasaaradda maaliyadda ee dalka ayaa dib u eegis ku samaysay shuruucdii dhowaan la soo saaray ee lagu hakinayay in dalka dibaddiisa laga soo dhoofin karo qaar ka mid ah wax soo saarka dalka ee laga soo dejin jiray suuqyada caalamka. Wasaaradda ayaa sheegtay in ay lagama maarmaan noqotay in dib u eegis lagu sameeyo agabka xayiraadda laga saaray aan lagu soo gedi karin lacagta adag ee dalka dibaddiisa lagaga soo gedi jiray. Walxaha dib u eegista lagu sameeyey ayaa waxaa ka mid ah walxaha hoostaga shaxda canshuurta ee ku samadaysan 94.1.9 iyo 94.3.9. Sidoo kale waxaa dib u eegis lagu sameeyey inay soo gadan karaan dukaamada waaweyn iyo goobaha maqaayadaha ah ee si iskood ah lacagta adag ugu soo gadan jiray waxyaabaha ay gadaan, kuwaasoo la oggolaaday in ay si iskood ah u soo gadan karaan. Sidoo kale hoteelada waaweyn ee xiddigta leh ayaa loo oggolaaday in ay lacagtooda ay ku soo gadan karaan agabka ay isticmaalaan. Wasaaradda ganacsiga iyo isku xidhka gobolka ayaa sheegtay in gabaabsiga ku yimid wax soo saarka sibidhka ay keeneen laba arrimood oo isbarkan, kuwaas oo kala habacsanaan ku timid dhinaca wax soo saarka sibidhka iyo baahida loo qabay sibidhka oo sii korodhay. Wasaaradda ayaana ku baaqday si loo daboolo gabaabsiga ku yimid wax soo saarka sibidhka in loo baahan yahay in la muujiyo dadaal dheeri ah. Wasiirka wasaaradda ganacsiga Gabramaskal Jara oo kulan wadatashi ah la yeeshay soo saarayaasha sibidhka ayaa sheegay in guud ahaan dalka dadaal loogu jiro sidii loo kobcin lahaa wax soo saarka sibidhka. Wasiirka ayaana si qoto dheer wadahadal ula yeeshay hantiilayaasha warshadaha sibidhka sidii looga howlgeli lahaa loogana gudbi lahaa gabaabsiga ka jira wax soo saarka sibidhka. Aqoon-yahanka ka howlgala jaamacadda Wallo ayaa sheegay in heshiiska ay gaadheen labada dhinac ee dowladda iyo kooxda TPLF uu horseedi karo in mar kale dhaqaalaha dalka uu boodhka iska jafo. Barasare Yimar Cali oo ka mid ahaa macallimiin wax ka dhiga maadada siyaasadda ayaa sheegay in heshiiska kasakow inuu xaqiijiyey madax bannaanida iyo midnimada Itoobiya uu yahay mid dib u soo nooleynayo horumarka dhaqaale ee dalka. Dhinaciisa, Professor Ayelo Wude oo isaguna la hadlay wakaaladda wararka ee ENA ayaa sheegay in caalamka sidiisaba dagaal lagu soo afjaro wadahadal iyo is-afgarad. Heshiiska ayuu sheegay inuu dib u soo nooleynayo dhaqaalaha dalka oo ay habacsanaani kala soo deristay dagaalkii dalka ka dhacay. Golaha Federeeshinka ee dalka ayaa sheegay in xuska qowmiyadaha iyo shucuubaha dalka ee sanadani loo baahan yahay in lagu soo bandhigo turjumida iyo midnimada shucuubta iyo qowmiyadaha dalkaas, taasi oo muujinaysa isku soo dhowaanshaha shacabka dalka. War-saxaafadeed uu bixiyey goluhu ayuu ku sheegay in sanadani xuska qowmiyadaha iyo shucuubaha dalka ee 17aad lagu qaban doono magaalada Hawaasa ee deegaanka Sidama, kaasi oo halku-dhig looga dhigay midnimadeena qaran waa horumarkeena iyo mustaqbalka. War-saxaafadeedka oo ay qabatay xogayaha guud ee joogtada ah ee xiriirka dowladda iyo arrimaha dastuuriga ah Banji Yirga Malas ayaa sheegtay in xuska sanadani uu noqon doono mid lagu soo bandhigi doono dhacdooyin ka qayb qaadan kara in dalka laga curiyo nabad waarta, sidoo kalena la gaaro horumar waara. Sidoo kalena waxay sheegtay in wadatashiyo laga yeelan doono fahamka dastuurka dalka iyo nidaamka federalismka.
wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda Dr. Ayub iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga Dr. Fesum oo wareysi gaar ah siiyay wakaaladda wararka ee APA ayaa sheegay in dhaqaalaha dalku uu muujiyo koboc lagu diirsan karo iyadoo uu ka soo gudbay caqabado tiro badan oo la soo darsay isbeddelkii dalka ka dhacay. Kobaca dhaqaalaha guud ee dalka ku yimid ayay labada mas'uul sheegeen in uu yahay mid ka dhashay dadaallada tirada badan ee ay dowladdu ka samaysay sidii loo dhaqaajin lahaa dhaqaalaha dalka, waxayna intaas ku dareen mas'uuliyiintu in iyadoo ay jiraan caqabado tiro badan, haddana lagu guuleystay in dhaqaalaha Itoobiya uu diiwaan geliyo koboc dhaqaale oo dhan 6.4 boqolkiiba, taasi oo ku timid sixitaano badan oo ay dowladdu ka samaysay dhaqaalaha guud ee dalka. Guud ahaan wararkeenii dalka Itoobiya waa naga intaas, tan iyo kulan dambena nabadgelyo.